kulanti abuna khayrta wadanaga la xidhay ku soo dhawaada warka wacyiga fi maalin walba haday kala taabataan qodobada maanta ku maqli doontaan waxa kamid ah xisbiga Himilo Qaran oo war ka soo saaray dacwada ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka wasiirka gaashaandhigga oo kulan la qaatay matalayaasha ciidanka ee caalamka roob xooggan oo ka day Beledweyne oo sababay inuu xirmo garoonka Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne oo fuudku wajahan Kismaayo iyo ammaanka aad loo adkeeyay iyo hogaamiyaha Khaatuma Cali Khaliif Galeyd oo Muqdisho ku soo wajahan qodobada dibadda maanta warkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah qaramada midoobay oo baaq ka soo saartay dibadbaxyada iyo rabshadaha dalka Ciraaq intaas waa qodobada warka u dooran in la ku soo dhaw imagana qodobka ugu horeeya warkeena saacadii la soo dhaafay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ka daayay roob xooggan oo muddo saacado ah soconayay roobkan ayaa waxa ku dirsaday dadka deegaanka iyo dunyada ee Beledweyne isla markaana waxa uu biyo badan dhigay wadooyinka ku yaal halkaas sidoo kale roobka ka daayay Beledweyne ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu saameyn ku yeeshay duulimaadyada garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa isla markaana uu xirmay wariyaal ku sugan Beledweyne ayaa waxay sheegayeen in garoonka diyaaradaha ku soo rawayn dad biyo badan watay kuwaas oo roobkii xalay ka daayay halkaas inta badan xilliyada ay roobka ka da'aan gobolka Hiiraan ayaa waxa saameyn ku yeeshay socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee iskaga kala goosha deegaano ka tirsan gobolkaas isla markaana waxa xirmay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay maanta lagu wadaa inay gaaraan wafuud kala duwan oo kala tagay magaalooyinka Muqdisho, Garowe iyo Nairobi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qayb ka ah mas'uuliyiinta la filayay inay gaaraan Kismaayo waxaana la sheegay in Jubbaland ay soo diri doonto diyaarad gaar ah sidoo kale siyaasiyiin ku sugan Muqdisho iyo Nairobi ayaa iyaguna ka sii jeeda magaalada Kismaayo kuwaas oo doonaya inay ka qayb galaan xaflad caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Madoobe qabanqaabada lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ayaa haatan ka socota garoonka diyaaradaha ee Kismaayo iyadoo maamulka Jubbaland oo diyaariyay dadweyne fara badan oo ka qayb qaadanaya soo dhaweynta mas'uuliyiintaas galankii dambe ee shalay waxa Kismaayo gaaray madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guleed iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa inay dhacdo 9 bishan oo ku beegan Arbacada soo socota kulan uu shir gudoominayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka xildhibaan Xasan Cali Maxamed ayaa waxa goobjoog ka ah taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya Generaal Odawaye Yuusuf Raage iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Jahan Xasan kulanka ay mas'uuliyiinta la qaatay matalayaasha ciidanka xooga dalka ee caalamka waxaa looga dhageystay xog ku aadan dalalka Soomaaliya ku matalaan iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin wasiirka gaashaandhigga oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in matalayaasha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee caalamka ay wax badan ku soo kordhin karaan ciidamada xooga dalka iyagoo suurtagelin kara tababarada ciidanka xooga isla markaana kala hadli karaan tayinta ciidamada dowladaha ay ku matalaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dowladda ayaa xusay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay soo celinta maqaamka ee Soomaaliya ku lahayd caalamka haatan qodobka dibadda qaramada midoobay ayaa waxay ku baaqday in la soo afjaro dilka macna darrada ee lagu leynayo wadanka Ciraaq xilli ay sare u kacday tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada dowladda looga soo horjeedo oo haatan ku dhow 100 qof dibadbaxyaasha ayaa sheegay inay ka go'aan qaateen oo ay ka soo horjeedaan shaqo la'aanta adeegyada bulshada ee aad ka xun iyo musuqmaasuqa ragaadiyay dalkaas Jasmine Hennis oo qaramada midoobay qaabilsan arrimaha dalka Ciraaq waxay ku tilmaantay xaaladda 5 maalmood oo ay hareeyeen dhaawac iyo dhimasho waxay sheegtay in mas'uuliyadda ay dusha saaran doonaan kuwa laayay dadka rayidka ah waa in cadaaladda la hor keenaa dadkii ka dambeeyay dilka iyo sargaaladan ka tirsan qaramada midoobay sabtidii ciidamada ammaanka ayaa waxay kala eriyeen dad badan oo isugu soo ururay wadooyinka bariga magaalada Baghdad 5 qof ayaa ku geeriyooday rabshadihii u dambeeyay ee ka dhacay dalka Ciraaq magaalada caasimadda ee Baghdad waxaana markale lagu soo waramayaa in ciidamada ay rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmeysay oo adeegsadeen si ay u kala ariyaan dibadbaxayaasha careysan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa warkii aad ka daawanayseen Wacyi TV tan iyo kala dambe nabaddiino.